rasuulkeena Maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku dhaartay 3 shay. 3daas shay waxaa ka mid ahayd sadaqada. Waxa uu yidhi Ilaahay baan ku dhaartaye, sadaqadu ma xoolo yarayso, sidaas cagsigeeda waxa ay badisaa oo barakaydaa maalka iyo xoolaha. Dhanka kale, maalqabeen lagu magacaabo Jack Ma una dhashay dalka Chinaha ayaa laga hayaa ooraha aad u caanbaxday oo ahayd: haddii dhalinyarada la kala dooransiiyo boorso lacag ah iyo 1 xabo muus ah, waxa ay dooranayaan muuska. Maxaa yeelay dhalinyaradu ma yaqaanaan qiimaha lacagta, mana fahansano in lacagtaasi ay u goynayso wax ka badan 1 xabo muuska. Noloshu dadka badankiisa maanta waxaa lagu qiyaasaa nolosha dhalinyarada, maxaa yeelay dadka badankoodii ma fahansano awooddoodii dabiiciga ahayd iyo waxa saxda ah ee Ilaahay u abuuray. Haddaba, dadka badankoodii waxa ay isweydiinayaan, waa maxay sirta looga baxo faqriga? Maxaase dadka qaar ka dhigay kuwo hodan ah halka kuwa kale ka dhigay fuqaro? Haddaba waxaa maanta isla eegaynaa 7 qodob oo aas u ah in aad furaha faqriga ah aad iska tuurto. Ku soo dhawaada, halkaani waa Bulsho Gaarsiiye. In aad dhalato adiga oo faqiir ah dembi ma ahan, laakiin haddii aad dhimato adiga oo faqiir ah, sababteeda cid kale ma lahan. Adiga ayaa ah kan dayacay fursadaha noloshiisa. Haddaba, si aad u fahanto sirta guusha maanta laga bilaabo, 7dan qodob ku dabaq noloshaada si ay u noqoto noloshaada mid guulaysato. Haddaba, waa maxay qodobadaasi? 1. Aqoonta iyo barashadeeda. Qof aan xirfad lahayn waa qof xiran. Baro xirfad aad ku shaqayn karto, ha noqoto mid farsamo, tusaale sida korontada, cilad bixinta kombiyuutarada, karinta cunooyinka, dhisaanada. Kuwaasi waa xirfado gacan ama xirfadaha maanta loo yaqaano digital skillska sida marketingka, digital marketingka, codingka, editingka iyo waxyaabaha la midka ah ee noloshaada u sameynayo in aad noqoto qof isku filan. Aqoonta waa furaha ugu weyn ee looga baxo faqriga. 2. Ka fikir dhaqaale abuur. Ma ahan kaliya shaqo. Shaqadu waa bilow, laakiin mar walba ka fikir sidaad adigu ganacsi u samaysan lahayd, xitaa haddii uu yahay mid aad u yar. Ganacsiyada ugu waaweyn ee adduunyada waxa ay ka bilowdeen 1 qof oo fikrad yar haysto iyo goob aad u yar, ilaa ay ka najaxeen kana noqdeen kuwa maanta adduunyadu idil ku faafay. Qodobka 1 ee ah in aad barato xirfad, iyo qodobka 2 oo ah in aad noqoto qof hal abuur dhaqaale leh oo shaqo samaysta. Haddii aad isku xirto 2daas qodob keliya, ayaa noloshaada waxa ay ku samayn karaan isbeddel aad u weyn muddo aad u kooban kadibna aad u mahadiso. Qodobka 3. Xiriirka wanaagsan. Xiriirka ugu horeeya ee la doonayo in aad wanaajiso waa kan waajibka kugu ah, kaalana dhexeeya adiga iyo Allaha weyn ee ku abuurtay. Haddii aad wanaajiso xiriirka idin dhexeeya adiga iyo Allah subxaanahu wa tacaala, waxaa hagaagayo kan idin dhexeeyo adiga iyo waalidkaaga. Haddii uu hagaaga kan idin dhexeeya adiga iyo waalidkaaga, waxaa xaqiiqo ah oo aan isweydiinayn in bulshada inteeda kale ay aad ku jeclaan doonto. Aad noqon doonto qof dabeecadiisa aad u furfuran, bulshadana ay aad u jeclaysato. Ma jirto wax loo yaqaano guulayste keligiis ah, laakiin waxaa jira guulayste waa kan xiriirka wanaagsan la leh bulshada inteeda kale, kala yaqaano
dhaqankeeda iyo caqabadaha ka soo wajihi karo bulshada dhexdeeda. Saaxiib fiican oo fikir leh waxay kaa caawinayaan albaab adigu keligaaga furi kari weysay. 4. Dhaqan kayd iyo maamulka lacag. Qof aan lacagtiisa maamuli karin xitaa haddii uu malaayiin helo, waxa uu weligiisa ku hoos noolaanayaa xariiqinta faqriga, kamana baxayo faqrinimada. Maxaa yeelay maamulka wanaagsan ee aad maamusho inkamka yar ee ku soo gala maalinkii, bishii ama sanadkii, waxa uu kaa dhigayaa qof waxtar leh, guulaysta. Baro sida loo sameeyo qorshe maaliyadeed iyo in aad keydsan karto qayb yar oo lacagtaada ah, xitaa haddii ay tahay mid aad u yar. 5. Isku kalsoonow. Qofka raba inuu faqriga ka baxo waa inuu aaminsan yahay inuusan weligiisa ku khasbanayn inuu ku sii hoos jiro nolosha faqriga ah. Aaminsanaanta ayaa wax walba ka weyn, macno badanna ka samaynayso. Faqriga ma ahan dembi, waa xaalad la bedeli karo. Guushana waa natiijo ka timaada dulqaad iyo joogteyn laisku daray. Qodobka 6. Ka fogow caadooyinka saboolnimada xoojiyo. Dhaqanka dadka qaar waxa uu ku celceliyaa caadooyin faqriga sii xoojiyo. Caadooyinkaas waxaa ka mid ah waqtiga oo lagu lumiyo meel aan faa'iido lahayn, qarashyo aan loo baahnayn oo lagu bixiyo meel aanan waxtar lahayn, iyo niyad-jab joogto ah. Haddaba waa in aad barataa in aad diiddo waxyaabaha kaa celinayo horumarka. Qodobka ugu dambeeya oo ah qodob aad u muhiim ah ayaa waxa uu dhigayaa sida tani: rabitaan iyo duco. Waxaa la yiraahdaa rabitaan xooggan lagu daray dadaal joogto ah lagu sii kaabay duco. Waxa ay ka dhigan tahay ama natiijada ka soo baxayso waa faqri la'aan ama hodantinimo aad loo mahdiyey. Guusha nolosha waa in aad Alla tala saarataa, dadaalna ku dartaa. Waa hubaal natiijada ka soo baxayso in ay noqonayso natiijo aad loo mahdiyey. Inaad noqoto qof guulaysto iyo inaad iska ahaato qof noloshiisa iska dhexdhexaad ah, raallina ka ah in uu ku dhinto asagoo iska faqiir ah, waxay ku xiran tahay si aad maanta tallaabooyinkan aad ugu dabaqdo noloshaada. Intaan ku kulmi doona barnaamij caynkan oo kale ah, waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.